Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada qaaliga ee ku xiran Skilab Academy. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago program aan hore usoo dhigay pagekeena ee ahaa in aan dhawaan bilaabeyno sida website-yada loo dhiso adigoo isticmaalaya WordPress. Maanta waxaan ka hadli doonaa introductionka programkan, yaa ka qayb qaadan karo, maxaa ku baranaynaa, inta coursekan uu socdo maxaan dhisi doonaa. Coursekan intuu socdo waxaan dhisi doonaa website. Websitekeena wuxuu noqon doonaa qaab noocan anagoo dhisayno websitekan Amazon. Waxaan dhisi doonaa website noocaane, laakiin websiteka waxaa ka wadaa waa sample. Websitekan Amazon waa website aad u ballaaran, mid noocaana ma dhisi karno sababtoo ah websitekan wuxuu ka kooban yahay intaasoo kun oo categories iyo intaasoo kun oo product ku jiro. Laakiin waxaan aragnaa waxay tahay in websitekan aan wax ka soo qaadano, alaabtiisa aan iibino, then lacag aan ku helno. Course-ka inta ay socoto waxyaabaha aan ku baran doono waxaa ka mid ah in faham guud aan ka qaadano in Amazon affiliate wax la dhaho. Amazon affiliate waa qaab internetka dadka lacag ay kaga samayn karaan adoo iibinayo maxaa la dhahaa productiga Amazon ay leedahay. Amazon markaa fiirisid waxaa ku jiro productiyo kala duwan. Tusaale categorieska markaa tagtid waxaa arkaysaa intaasoo kun oo category. Haddii Amazon affiliatekeeda aad qaadatid ama aa member aad iska diiwaan gelisid oo alaabtan Amazon ay leedahay aad iibisid, waxaa helaysaa commissionkaas oo u dhexeeyo 5% ilaa iyo maxaa la dhahaa 12%. Marka wax walba oo ku saabsan waan arki doonaa qaabka ay u shaqeeyaan. Sidoo kale halkan waxaa idinkaga muuqda waa course contentiga ama course-ka inta ay socoto waxyaabaha aan ku baran doono. Waxaa kaloo baran doonaa sida niche loo doorto. Tusaale Amazon wuxuu ka kooban yahay niche kala duwan. Halkaa markaa tagtid oo aad dhahdo Amazon associate programka aan ku shaqeyn doono waxaa la dhahaa Amazon associate. waa the most programkan waa qaab internetka lacag kaga samayn kartid. Qaabka u shaqeeyana waa kana halkan saa ujeedid. Ugu horeyn waxaa ku biiraysaa Amazon associate adoo iska diiwaan gelinayo oo ku dhufanayo maxaa la dhahaa loginkan, ama haddii aad ku cusub tahay join free aad ku dhufanaysid. Halkaa markaa ku dhufatid waxay ku siinayaan linkiyo oo productiga, linkigaas waxaa dhigaysaa websitekaaga. Halkan waa mar walba oo qof wax ka iibsado linkigaaga waxaa heli doontaa lacag. Waxaa idin tusi doonaa marka waxyaabahaas oo dhan sida loo sameeyo. Tusaale hadda annagoo isticmaaleyna dummy website.
igaraal noqda xoogaa waan yar mashquulay waxyaabaha kale aan ku baran doono programkan waxaa ka mid ah in yani hosting iyo domain aan iibsano tusaale hostingka maxaa la dhahaa domainkana maxaa la dhahaa waa baran doonaa hostingka waa yani datada websiteka meesha la dhigi lahay domainkana waa magaca hadda halkan haddii aad fiirisid markaa qoraysid www dot maxaa la dhahaa tusaale all banaadir all banaadirkan wuxuu u taagan yahay yani domainkeedii ama magaca aa qaadan lahayd websiteyadan hadda waa caadi yani magaca arta waa la bixi kartaa laakiin marka adi aa rabtid website internetkana aa lacag ka samaysid sida affiliate marketingka camal iyo waxyaabaha noocaas waxaa u baahan tahay magacaaga inuu ahaado magac yani oo waqti la geliyey oo baaritaan lagu soo sameeyey oo yani receipt aa ku samaysay keyword receipt waxa la dhahaa jiro waa arki doonaa sidoo kale hostingkana waxaa la dhahaa haddii aa fiiriso meeshaan hostinger hostingkana waxaa la dhahaa yani maxaa la dhahaa meesha aad dhigi lahayd datada websitekaaga marka qof walbo courskan kusoo biirayo wuxuu u baahan yahay in qof walbo courskan rabo inuu kusoo biiro ama jecel inuu ka qayb qaato programkan programku waa challenge muddo gaaban oo soconaa qof wuxuu u baahan yahay inuu hosting iibsado sidoo kale waxaa u baahan tahay inaad domain iibsatid si yani adna aa u dhisto websitekaaga si practical wixii la sameynaya aad sameyso si yani aa xirfadda u barato oo aad kaga qayb qaadato yani maxaa la dhahaa challengiga socdo marka haddii aad daneynaysid in courska aad kusoo biirtid keliya waxaa u baahan tahay lacag yar oo dhan adi $50 kontonkaas doolar oo adi naftaada aa ku maalgelinaysid sababtoo ah in yani website aad dhisato oo lacag aad ka samayso waxay u baahan tahay ugu horeyn inaa adi maalgelin aad samaysid yani haddii oo qof uu yahay diyaar maxaa la dhahaa aad jeceshahay inaad ka qayb qaadatid programkan commenti kusoo qor waxaa lagugu dari doonaa yani group ama websitekeena form aa soo buuxinaysaa formka markaa buuxisid automatically maxaa la dhahaa waxaa lagu soo diri doonaa fariintaas oo ku sheegaysa yani qaabka maxaa la dhahaa ay wax u socdaan iyo qaabka loo bilaabayo programka yani lacagta maalgelinta aa u baahanayso halkaana ka fiirinayna websiteka wuxuu noo sheegaa yani inta qarash aa u baahan tahay iyo waxa aa maalgashanaysid sababtoo ah websitekan waxay iibiyaan hostingka iyo domainkii haddii hosting aa ka iibsid waxay ku siinayaan domain free marka annaga maxaa u baahannahay hadda waxaa u baahannahay in yani aa qiimeyn ku sameyno qarashka ku baxaayo hostingkeena iyo domainkeena waa kanaa marka waxaa jiro noocyadan kala duwan ee hostingka single web hosting waa 45 rubi hadda waxaa u bedelaynaa indian rupees waaye waxaa u bedelaynaa lacag united states dollaraa ka dhigaynaa si dadka badanaa soomaalida waxay fahmaan lacagta dollarka ma fahmayaan lacagta oo hindiga haddii aa qaadanayno single web hosting ama hostingkeena hadduu yahay yani single web hosting noocan la dhahayo waa 80 rubi miya per month marka annaga waxaa u baahanaynaa 2 bilood camal wuxuu ku siinaa marka kan inaa hosting u samaysid hal website keliya sidoo kale wuxuu ku siinaa hal email free emailkan waxaa laga wadaa tusaale marka adi aa websitekaaga magaciisu uu yahay tusaale websitekaaga waxaa la dhahaa arif.com camal kasoo qaad arif.com kan wuxuu ku siinaa marka email ama professional email email saan info@arif.com emailka noocaan ku siinaa halka yani emailka dad arif.gmail.com @hotmail.com ma u baahnid maxaa la dhahaa in aad gmail aa isticmaashid ama waxaa isticmaali kartaa wuxuu ku siinaa noocaan haddii aadan shaashadda u jeedin aan weyneeyo tusaale websiteka markuu yahay arif.com wuxuu ku siinaa email
noocan ah ama professional email la dhahayo info@arif.com. laakiin waxaa limit ah bandwidthkiisa halkan waa 100 GB. marka waxaa ka fiican noocan la dhahayo premiumka wuxuu kaa saacidaa in yani website kala duwan hosting ugu samaysid. sidoo kale unlimited email accounts ku siinaa haddii yani team ahaan aa u shaqaynaysiin ama maxaa la dhahaa group qof asxaab ay kula shaqaynayso qof walbo in yani email u gaara aasis. sidoo kale waxyaaba ay kala duwan yihiin waxaa ka mid ah unlimited bandwidth kan halka 100 GB oo ka yahay maxaa la dhahaa bandwidthkiisa noocan waa unlimited. sidoo kale processing powerka ama awoodiisa kan waa maxaa la dhahaa one times kanna waa 2 times yani very fast uu ka sareeyaa xawaaraha marka la dhaho. sidoo kale wuxuu siinaya weekly backup. haddii aan ku dhufano hadda oo halkaan aan dhahno aad jaart waxaa ogaan doonaa marka hostingkeena iyo domainkeena totally kharash baa lagu bixi doona. halkaa marka aan fiirino lacagta hostingka iyo domainka nagu baxaayo waxaa u baahan anaga keliya sanad in yani websitekeena aan tijaabo ku sameyno oo aan waqti iyo dadaal ku bixino kadib websiteka asaa is bixinayo. ugu horeyn waxaa u baahan tahay sanadka ugu horeeya inaa adeer maalgelin ku samaysid. okay waxaa dooranaynaa 12 bilood. 12 bilood marka aad doorano qaybtan hoose wuxuu ku dhahaa free SSL certificate marta. SSL certificate wax kala ma inaad websiteka markaa booqatid waa HTTPS secure waaye. saas oo kale websitekaaga in uu secure kuu noqdo ma u baahan tahay adoo isticmaalaya HTTPS certificate. haddii aad u baahan tahay marka waxaa ku dhufanaysaa halkaasaa jag saaraysaa ama si free yani kan waa free ayagaa ku siinaya. midda kale daily backup u baahan tahay ku dhahayaan backup haddii aad rabtid halkaas ku dhufanaysaa haddaadan rabin waa ka soconaysaa. hadda qarashka nagu baxay waa $45. waxaa helaysaa marka free hosting ama yani in magacadii aad jeceshahay si free ah ku heshid. tusaale meeshan haddii aan dhahno arif.com hadda 1 year oo hosting iyo domain waxa aan ku haysanaa lacag dhan $45.28. marka haddii programkan aad danaynaysid inaad ka qayb qaadatid aana jeceshahay in yani maalgelinta aad samaysato si yani mustaqbalka oo kugu noqdo yani machine lacag ku sameynaya. websiteka haddii aad maal gashatid oo aad ku dadaashid muddo 3 bilood gudaheeda wuxuu ku samayn doonaa maxaa la dhahaa asaa wuxuu ku noqonaa yani machine oo lacag ku soo saara. ATM-ka marka bangiga wax dhigtid ATM-ka aad tagtid automatically kaarkaaga waa kala baxaysa. saas oo kale websiteka marka aad dhisatid waqti aad ku bixisid qarash aad gelisid wuxuu ku noqon doonaa mustaqbalka machine wax ku soo saara. kooraska haddii aad rabtid yani faahfaahin kaloo dheeriya iyo waxyaabo kaloo ka badan intaan iyo waqtiga ay bilaabanayso iyo sida loogu qayb qaadanayo haddii aad rabtid yani qaybta hoose ee commentiga message noogu soo dir ama fariin noo dhaaf. insha allah waa kula soo hadli doonaa tiimkana waa lagu diraa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.